bal kii biraha iyo alwaaxyada ay ku jireen oo intaan dhan caagadaha ay kaga jireen oo ina adeerkiis usoo hiilinaya soo af dheer oo meesha soo gala wuxuu dhahay lacagna waan ka adkahuu dhahay shaqana waa ka adkahay halka midoo iga adag kulahaa waa jacaylka adi ka adkaanaya maxaa wa annaga ma isku dheelina yani adduunyo kale taa ku jirnaa miya caruurtaadii iyo xaaskii America ku keentaad inta uga tagtay markaasaad gabar islaameed reerahooda been u sheegaysaa jacaylka adi aad ka sheekeyn kartid maxaa waay jacaylka ilmahaaga kaa waayeen iyo xaaskaaga oo meel walba ilma aad uga soo tagtaa waxaa iga dhaadhicinaya jacaylkee waraa jacaylka ka baxa faarihiisa waraa jacayl adi maba lagugu talagelay nin bire ku jiraanoo intaan dhan wada maski uga jiraano inay adeerkiis qadiyada iyo qabyaalada kaa badatay waxaan qabiil ahayn ma taqaana waraa ani maxaan kaa suubiyey sheeg waxaan qabiil ahayn ma garanaysaa sheeg waxaan qabiil ahayn ma ninkaas adeertaan adi ugu yiilusa sheeg waraa qadiyada iyo qabyaalada waxaa magaalada ku soo gashay basa iga adag kula ma jacayl adi ka adag jacaylka xaaskaaga iyo caruurtaadii ee kaa weysay gabadhan cusub oo masaakiinta reerkeeda ah ka soo kaxaysay ina adeero been ha u sheegin ruufyaannima ina adeerka ugu hiilinoosaye dhaga hadalka everyday la isku soo mention garaya waxaas I don't give a shit ina adeerkayga u hiilinooyaa dheh my cousin aan u hiilinooyaa qadiyad iyo qabyaalada ay qaaday dheh oraa qabiila kaa buuxano qabiila kaa buuxo familkaaga dhanaa aqaana wiilasha dhanaa aqaana hal qof oo qabiil ka sheekeynaya male waxaan ninkan hoosta kaa geliyay waa qadiyada iyo qabyaalada war hooyada ku dhashay iyo walaalaha ku dhalay iyo reerka ku dhalay dabeecadooda iyo dhaqankooda ilaahay intuu kaa marsiiyey war familkaaga dad fiican oo wanaagsanaaba ku jiray intee ka keentay dhaqan xumadan waxa biraha iyo alwaaxyada iyo dhalooyinka ilaahay ummadda uu kaaga saaraa qabta gabadhan masaakiintana waxba uma qadiyada iyo qabyaalada waa waxaan